wuxuu u frame gareeyay taariikhda Soomaaliya qaab asaga anfacayso qaab dadka wada anfacayso ama wadaniyad guud lagu abuuray ma ahayn qaab dadka lagu canqarinayo sida masaasad caruur afka loo galiyo caano oo ah inay jeclaadaan oo military regime kan kacaanka isku magacaabay meesha ka dhashay ay ahayd waxbarashada ku salaysneed ma ahayn waxbarasho loogu talagalay guud ahaan Soomaaliya oo dhan in waqti fog in lagu diyaariyo waxbarasho dhan u qaabaysneed qaab kacaan lagu magacaabay koorintii aan ilaahay umada xalaasha ee Soomaaliyeed u soo dirin mahdigii dhintay Maxamed Siyaad Barre wuxuu yiri gabyaagii doodaan war maxaad reerada uga dhigtaan boqor Dumaliyasay kuwa aan ka hadlayo kuwa maanta u ololeynaya inay dalka gumaysi galiyaan si ay u helaan kursi madaxtooyo oo niman ay ka muuqato inaanay noolaan karin inay dawlad wax ku cunaan ma ahane buugaagta qaar ee Soomaalida laga qoranayo ugu yarto afarta dawlad ku nool waa kuwa u haysta inay Soomaaliya iyaga ugu aqli badan yihiin laakiin on the contrary daruus kacaan oo dadka day wixii bari haduu kacaanka meesha ka baxo maxaa dhacay marka in waxa dhacay foolxumo in loo waxay baabaan marka marnaba laguma dirin daruusti wadanka hatta dilka madaxweynaha lagama hadlin iskuulada laguma dhigin taariikhdiisi waxa laga sheegay 9 sanaba inay musuqmaasuqeeda ka sheegeen waxay foolxumeynayeen rekoorka wanaagsanaa ee dawladii ay ka horeeyay si ayaga sharciyad ugu helaan in wadankan iska sii haystaan wixii ka horeeyay ay baabiinayeen waana dhibka dhacay ogow dhibka dhici doono ee la hadda la xalin la yahay waay markuu maxamed doona habeenka haduu doorasho dhiga hadii inuu doorasho dhigaya dadka badankiis walwal iyo walaac uga jiray sida xasan sheekh inuu doorasho dhigay kursiga nabad iyo dimuqraadiyad inuu uga tagay macal gaaladii ayaa ku sheegaysa ka walsan waxay ku leeyihiin kuwa Soomaaliya dirsan marka hadda soo arkay aan ku soo arkay Norway soo Oslo way bayeen ay ku leeyihiin samarka marka aduu marka saaba oo doorasho dhigo wuxuu ku baxayaa iyadoo la macaladayo magaalada dhan isku soo bixi doonto la soo xamar qof kuma hari doono habeenka leeyahay farmaajo ku ka dhigay nin cusub ayuu marka anigu waxaan ka baqaaba xaguu aadi doonaa marka asay magaalada soo bixi doonaa waxay noqonay dawladda dambe in la yiraahdo gudi hal saaro waxa ii muuqata inuu ka soo socdo Soomaaliya xasuuq la mid ah kii ka dhacay Rwanda ee Hutu fi Tutsi Soomaaliya ma lahan maanta wax dawladda waxayna ku jirtaa xaalad ka xanuun badan tan Falastiin waxaan hadaba ugu baaqayaa wax garadka xamar in wixii heshiisa ay la galayaan باطل يزور بكو الرمية مركاسي آفاقه أو رمبي قارسة هل مربع واحد لقيسانية خلائقا حصل الله قولها آدمه كحريرو هي مواقع التواصل دادكو أي كحريرو أيو كقريا أما عضهان وقلينيا واتساب وقلينيا فيسبوك وقلينيا فايبر وقلينيا أيوك وقلينيا وحيانها بني آدم وهذا كتواصله أيو كلمة افترية بين قلينيا markaasa hal mar waxa taalacanaya khalaa'iq aan xasri lahayn waagii hore intay gaari kartay way koobnayd maanta si xaalku halkaas u gaarsiisay ittaqillaaha ya rajul ilaahay ka baq naftaada u baq aakhiradaada u baq beentan aad sii daynayso id khalaa'iqda ku sii daynayso cuquubadeedu waa taa waa qabrigay ku ciqaaban yihiin dadka aan tilmaamayno aakhira la isma gaadhin ilaahay hortiisana weli lama tegin naartii weynaydii xaalkeeduna waa laaban yahay warkan furan iyo xubnahan furan iyo dhaqankan furan ee aan xad lahayn ee alla ka cabsigu ku jirin waa wax kugu soo noqon doona aad uga xisaabta